jirkaaga nooca uu yahay wuxuu saameyn balaaran ku yeeshaa wax walba oo aad samayso exercise-ka cuntada iyo isbedel walba oo ku dhici kara qaab dhismeedka jirkaaga videogan maanta waxaan kaa caawin doonaa barashada jirka nooca aad leedahay iyo sida aad u qurxin karto adiga oo raacaya saynis ahaan nooca jir ee aad leedahay waqti dheer ayay igu qaadatay barashada waxa aan maanta idin soo gudbinayo ku biirida saaxada fitnesska kadib markaan ku wareeray programyada suuqa yaala supplementyada kala duwan iyo cuntada informationka ku dheer yahay aadka u kala duwan waxaan garan waayay waxa saxda ah ee aan sameeyo ilaa 6 bilood muddo la eg xaqiiqdii waxaan ku sugnaa wado ka fogeed halka aan ku sii jeeday ilaa aanba ku sigtay inaanba faraha ka qaado balse markii dambe ee aan arkay daraasadan laga sameeyay noocyada jirka uu u kala baxo indhahana way ii furtay waxaana si degdeg ah ku ogaaday sababta ka dambeysay inaan guusha aan raadinayay ku gaari weysnaa jir ahaan waxaan ahay shakhsi endomorph iyo ectomorph u dhaxeeya ha ku wareerin magacyadan aniga ku kala saari doona jirka bini'aadanka ah waxaa loo kala saaraa 3 nooc oo lagu kala magacaabo endomorph ectomorph iyo mesomorph iyo kuwa u dhaxeeya 3 aadna u dhib badan koowaad Soomaalidana u badan yihiin waa ectomorphka jirka nooca ay dhahaan jir aad u dhib badan miisaanka uusan koraynin wax walba uu sameeyo lafa yaryar leh murqihiisu yaryar yihiin seet leh garbihiisana aad moodo inay isu dhow yihiin qofkan wax walba uu cuno isma bedelo in kaliya hal kiilo ku darsatana waqti dheer bay ka qaadataa dheefshiidkiisa aad buu u sareeyaa dheefshiidkiisa oo aad u sareeya darteedna waxay sababtaa inuu calories ama tamar tiro badan uu qofkaas degdeg ku gubo taa oo ku khasbaysa inuu qaato calories aad u tayo sareeya ama cunto awoodiisa kor u soo qaada qofkan waxaa lagula taliyaa inuusan exercise garaynin ama uusan jimicsanin wax ka badan 4 ilaa 3 maalmood supplementyo tayalena uu qaato khaasatan kuwa calorieskooda aadka u sareeyo sida serious maska culimada waxay ku taliyaan inuu habeenkii ka hor jiifka uu cunto fiican qaato qofka dumar ectomorph uu yahay si muruq burbur uusan ugu dhicin ama waxa loo yaqaano catabolismka sidoo kale qofka noocan ah ectomorph jirka noocaana leh waxa aad ugu fudud in 6 baagiisa waqti walba banaanka uu iska yimaado exercise-yada nooca lagula taliyo waxa kamida full body workout-ka inuu jirkiisa 3 maalmood uu dhammaan wada exercise gareeyo exercise-yada sida kale lower and upper exercise ka loo yaqaano in maalin uu qaybta kore ee jirkiisa isu maro halka maalinka xigta uu qaybta hoose sameeyo haddana maalinka 3 iyo 4aadna uu sidii ku celinayo jirka nooca labaad waxaa la dhahaa mesomorph qof lafa waaweyn leh murqihiisa xitaa asaga oo aanan jim tagin muuqdaan dheer garbaha balaaran yihiin jirka cayaartooydana leh dabcan waxaa lagu tilmaamaa jirka ugu quruxda badan ama ugu wanaagsan waxaa aad u sahlan qofkan in ay miisaan uu iska rido waxaana u sahlan in uu muruq dhisto dadkan jirka mesomorph kale waa dadka aad inta badan ku aragto jimka ayaga oo shalay yimid haddana durba isbedel ku yimaada kaliya ciladoodu waxay tahay faadka wuxuu u koraa si degdeg ah ayaga oo haddana ay u fududahay in ay si degdeg ah iskaga ridaan faadka waxaa lagula taliyaa mesomorph group in ay aad ula socdaan calorieskooda ama waxa ay cunayaan sidoo kalena exercise-kooda ka dhigaan cardio iyo weight training la isku dhex daray 3 ahna groupka ugu dambeeya endomorph jir jilcan faadka ama baruurta sahal ku qaabila calool kuusan garba yaryar leh lugaha ka adag maadaama uu qof gaaban yahay mararka qaar murqo way leeyihiin dadka noocan ah ee endomorphka laakiin baruurta ayaa ka qarisa qaybta hoose jirkoodu waxaa lagu sheegaa in ay adag tahay khaasatan marka ay sameynayaan exercise-yada lugahana ay ku daran yihiin qof haddii uu biyaha cabo xitaa ku cayila waa endomorph group of time dheefshiidkiisuna aad u tayo hooseeyo oo cuntadu aanan wax shaqo tiro badan ka qabanaynin dadka noocan ah maalmo haddii ay ka dhaxbaxaan diet-kooda amaba ay noloshoodii caadiga ku soo laabtaan jimicsigana iska dhaafaan waxaa durba soo kora miisaanka saarnaa ama way cayilaan si degdeg ah waxaa lagula taliyaa haddii aad endomorph tahay cardioga in uusan qofka weligiis ka caajisin mar walbana isku sameeyaan cardioga iyo weight trainingka supplement qofkan u baahan yahay dabcan waa haddii ay cuntadiisa 100% proteinkeeda ay saxan tahay uma baahna exercise-yada ku haboon
waxaa ka mid ah kow full body trainingka oo ah in jirkaaga oo dhan aad wada train garayso upper lowerka oo aan ka soo hadalnay sidoo kale maalinna qaybta kore jirkaaga aad siiso halka maalinka kale qaybta hoose ee jirkaaga aad siinayso sidoo kalena push pull legs exercise lagu tilmaamana waa loogu talagalay qofka endomorphka in uu sameeyo waxaan kusoo gabagabeynayaa videogan in dadka qaar sida aan horay u soo sheegnayba u dhaxeeyaan saddexdaas ama laga yaababa laba kamida inay isku qaataan sidayda oo kale balse mar walbo midka aad u aragto inaad u dhowdahay shuruudihiisa qaado sidoo kalena commentiga nagula wadaag nooca jirkaaga adigu yahay walaalka Coach Sabriya salaamu calaykum